بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوادا chapter كيني أما عتب كيني لبعض الجبرا ونكو برانتونا إسلاجيو سابلي quadratic equations. هدي هدبا أنو concept أما حق أنو كبحنو إسلاج سابلي وحنكو قحي كرنا أما أنو أركنا إسلاج سابلي وحي لهاي هيرك لبعض oo ah x square waxaana u qoran tahay sansaanta ax square plus bx plus c. inta waxay noo leekaanaysaa 0 where a b and c saddexdaasina ay ka kooban yihiin a constant madoorsome. sidoo kalena waxaa halkan lagu wuri oo la socota yaani eedaynu marnaba leekaanin 0. haddii eedaynu 0 leekaato waxaa dhacaysa in tibixda ugu horeysa ee heerkeedu ay ka kooban tahay 2 ay meesha ka baxdo, kadibna ma noqonayso quadratic equation mar haddii x square uu meeshu ka baxo. haddaba si aanay taasi aanay u noqonin waxaa halkan lagu yiri yaan marnaba ee qiimaheedu aanay ku leekaanin 0. haddaba markaan u baahannahay in aanu quadratic equation keena aanu furfurno waxaana looga baahan yahay in aanu saddexdan hab ama saddexdan dariiqo aynu mid ku furfurno. mar waxaan ku furfuri doonaa factorization, mar waxaan ku furfuri doonaa habka ama dariiqada loo yaqaano factorization, habka isiraynta. mar waxaan ku furfuri doonaa habka loo yaqaano completing square oo ah dhamaystirka laba jibaarka. mar waxaan ku furfuri doonaa habka loo yaqaano quadratic formula oo inoo noqonaysa jidka saabley. haddaba su'aalaheena soo socda waxaynu ku furfuri doonaa isleegtan saabley, habka factorizationka, habka isiraynta ama dariiqada isiraynta ayaan tusaalahan soo socda aynu ku furfuri doonaa. saan ugu furfurno waxaan halkan ku qornay solution oo inoo noqonaysa furfuris. haddaba aanu dib u qorno isleegteena 9x square plus 18x plus 9 is equal to 0. si haddaba aynu u furfurno waxaan u baahnay in tibixdeena dhexe aynu kala jebino oon u kala jebino 9x plus 9x plus 9 is equal to 0. sababta waa maxay? waxaanu ku bedelanay halkaa waxaanu ku bedelanay 18 x ah wadartana siinaysaa waxay noqonaysaa 9. 9x loo geeyey 9x ayaa waxaan ku bedelanay wadarta ayna siinayso 18 ayaan ku bedelanay dhinaca. okay, haddaba halkan waxaanu ka saaraynaa waxaan oranaynaa iminkan waxaan u baahnay in aynu isireyno ama aynu ka saarno dhinacan waxa hal dhinaca ku jira. halkan waxaanu ka saaraynaa 9x waxaa nagu soo haray x plus halkan waxaa nagu soo haray 1 plus dhinacan waxaanu ka saaraynaa 9 waxaa nagu soo haray x plus 1 is equal to 0. haddii imka labadaas ku dhufano waxay noqonaysaa x square. haddii 9x plus 1 ku dhufanana waxaa soo baxaya 9x. okay, markan xisaabteeni way fiisan tahay, markan xisaabteeni waanu isiraynay. kadib isiradu waxay noqonaysaa 9x plus 9 oo ku dhufsan x plus 1 is equal to 0. hadda waxaynu oranaynaa x plus 9 mar wuxuu ku leeg tahay 0 or ama x plus 1 waxay ku leeg tahay 0. 9x waxay ku leeg tahay markaad wareejiso wuxuu qaadanayaa tiro 10 buu noqonayaa oo waa -9. si aynu x u soo saarno dhan walba waxaan u qaybinaynaa 9. x waxay ku la mid tahay -1 halkan kalena x waxay ku la mid tahay
minus 1. okay, qiimihii x waan soo saarnay. si aan haddaba qiimaha x aanu hubino waa inaanu check raynaa. halkan waxaan ku qoraynaa check si aan u hubinayno qiimaha x ama value-gan soo saarnay si uu sax noqdo. waxaan ku bedelaynaa selecteena minus 1 square plus 18x waxaan ku bedelaynaa minus 1 plus 9 is equal to 0. haddaba minus 1 marka laba jibaaro waa 1kii waxaa ku dhufataa 9kii waa 9kii. labadan markaan isku dhufano tarantooda waxay noqonaysaa minus 18 plus 9 is equal to 0. labadan haddii aanu kala jarno faraqooda wuxuu noqonayaa minus 9. sababtu waa maxay? tirada weyn calaamada wadato ayaanu tixgelinaynaa. plus 9 is equal to 0. 0 waxay ku leegtahay 0 ayay ku leegtahay. casharka labaad waxaynu ku furfuri doonaa mar haddaynu ku furfurnay habkii isiraynta. casharkeena labaad insha allah waxaynu ku furfuri doonaa habka dhamaystirka laba jibaarka.